nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo akhlaaq wanaag oo dhan ku sifooba ayuu haddana ilaahay wuxuu ka baryi jiray allaahuma kamaa axsanta khalqii fa axsin khuluqii ilaahu sidaad abuurkayga u fiicnay saad ii qurux badnaysiisay korka gudahana iiga qurux badnaysii waa dhaqanka bini aadamku qofku two personalities buu leeyahy midi waa muuqaalkan nin cad oo dheer oo noocaad u egtay nin madow oo aan noocaad u egtay waa shakhsi labaad baad tahay oo ah dhaqankaaga ficlanna horta ka bini aadamka qiimaha leh dadku ay ku xisaabtamaan waa shakhsigaaga labaad si kasta haddaad u fool xun tahay muuqaalkaaga kan waa sancadii ilaahay inagu maale kana waa foolxuyi kana waa qurux badan yahay wuxuuba waa sancadii ilaahay si kastoo araggaaga kani u eg yahay hadday akhlaaqdaadu fiicantahay bini aadamka waad hananaysa si kastoo aad u qurux badanto oo u weji casto u qurux badan tahay haddaad dhaqan xuntoo jacjacoor tahay waxba cidi kugu fali mayso idan labada beersanaalati ka qiimaha badan leh waa ka hoose labada dadnimo ka qiimaha leh waa kee waa ka hoosaa qiimo badan hadday labaduba isugu darsadaanna waa nicmo ku